kulan ismaqal wanaagsan daawadayaal halkani waa Sirta Media waxaad ku soo dhawaataan warka fiidnimo ee Sirta Media. magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa waxa wali ka socda shirka golaha midowga musharaxiinta oo galay maalintiisii saddexaad. shirkan oo ahaa mid xasaasi ah ayaa ka socda hotelka Jazeera ee magaalada Muqdisho waxaana looga hadlayaa xaaladda siyaasadeed ee dalka, gaar ahaan arrimaha soo kordhay iyo doorashooyinka. sidoo kale waxaa shirka maanta ku biiray ururada bulshada rayidka ah si ay warbixin isku dhaafsadaan iyaga iyo midowga musharaxiinta mucaaradka ee shirkan qabsanaya. labada dhinac ayaa iska xog sida ay ku bilowdeen doorashooyinka aqalka sare ee weli ka soconaya xarumaha maamul goboleedyada dalka iyo tan soo socota ee lagu dooranayo xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. midowga musharaxiinta ayaa sidoo kale la wadaagay bulshada rayidka mowqifkooda ku aadan doorashooyinka soo socda iyo sida loo sixi karo qaladaadka ka jira meelaha qaar. dhankiisa gudoomiyaha ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed Cismaan Muxudiin Shaatax ayaa qiray in musuqmaasuq baahsan uu hareeyay doorashooyinkii waan ka dhacay xarumaha dawlad goboleedyada ee lagu doortay xubnaha ka mid noqonaya golaha aqalka sare ee soo socda, isla markaana la jeclaysan karin siday ku bilowdeen doorashooyinka, loona baahan yahay in cadaalad uu noqdo tartanka haatan ka socda gudaha dalka ee lagu dooranayo xubnaha aqalka sare iyo sidoo kale golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. kulamadan u socda midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa ku soo aadaya xilli xasaasi ah, waxaana la filayaa gabagabada kulankani in laga soo saaro warmurtiyad xasaasi ah oo looga hadlaya xaaladda guud ee dalka iyo doorashooyinka haatan ka bilowday gudaha dalka. waxaana shirkan la filayay inuu qayb ka noqdo ra'iisul wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Rooble oo maanta u ambabaxay dalka Masar oo halkaasi si weyn loogu soo dhaweeyay, sidoo kalena ay qayb ka noqdaan xubnaha beesha caalamka u jooga gudaha dalka. balse Rooble ayaa nasiib u yeelan inuu hortago midowga musharaxiinta mucaaradka oo ay kala hadlaan xaaladda doorashooyinka. shirkan intuu socday midowga musharaxiinta ayaa waxay la kulmeen guddiga doorashooyinka heer federaal ee FID iyo sidoo kale ururada bulshada rayidka qaybahooda kala duwan, waxayna guddiga doorashooyinka inta badan kala hadleen xaaladaha doorashooyinka dalka, qaladaadkii ka dhacay doorashooyinkii aqalka sare ee ka qabsoomay xarumaha qaar ee dowlad goboleedyada, gaar ahaan kuwa farmaajo taageersan ee Galmudug iyo sidoo kale Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. midowga musharaxiinta ayaa aad u dhaliilay doorashooyinkaasi iyagoona ka codsaday guddiga doorashooyinka heer federaal ee FID in sida ugu dhaqsiyaha badan ay wax badan ka qabtaan doorashooyinka qaladaadka ka dhacaya, isla markaana wixii hadda dhacay ee mar kale ku soo laaban doorashada lagu wado in dhawaan ay ka qabsanto gudaha dalka ee lagu soo dooranayo xubnaha ka mid noqonaya golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. golaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa walaac xoogan ka muujiyay sida wax u socdaan, iyagoona dhaliil xoogan u jeediyey madaxweynaha mudxuleedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ay sheegeen inuu ka dambeeyo haatan qaladaadka dhacaya oo uu doonayo in doorashooyinka dhan uu ka dhigo sida uu isagu rabo inay wax walba noqdaan, balse iyaga aysan ka yeelinin Farmaajo sida wax u wado inay u qabsoomaan oo ay ka hortagayaan in dalka u galo qalalaasa siyaasadeed oo dowladda soo socota saameyn ballaaran ay ku yeelato siday wax u dhaceen hadda. midowga musharaxiinta ayaa lagu wadaa markii uu dalka dib ugu soo laabto 2 cisho kadib ra'iisul wasaaraha dalka in kulan ay la yeeshaan ra'iisul wasaaraha oo ay kala hadlaan siday wax u socdaan, isla markaana ay rajeynayaan in Rooble oo ah mas'uulka ugu sarreeya haatan dalka oo maamulaya doorashooyinka dalka in wax badan uu ka bedelo dhibaatadan ay sheegeen in haatan ay ka jirto xarumaha dowlad goboleedyada ee doorashooyinka ay ka qabsoomayso. daawadayaal waxaad daawanaysaan qaybaha hore warka Sirta Media. markan haddii aynu eegno ra'iisul wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Rooble oo maanta u ambabaxay dalka Masar xilli uu casuumaad ka helay madaxweynaha dalka Masar Cabdifitaax al-Siisi ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay caasimadda dalka Masar ee Qaahira, waxaana kulan hordhaca uu la yeeshay ra'iisul wasaaraha dalka madaxweynaha dalkaasi Masar Cabdifitaax al-Siisi oo ay ka wada hadleen xaaladda labada dal iyo sidoo kale doorashooyinka Soomaaliya haatan ka bilowday. Rooble ayaa la wadaagay madaxweynaha dalka Masar Cabdifitaax al-Siisi warbixin ku aadan xaaladda dalka oo ay ugu horeyso arrimaha doorashooyinka dalka xilligani ka bilowday, waxaana labada mas'uul la sheegay inay ka wada hadleen sidoo kale arrimo kale oo muhiim ah, isla markaana Rooble la dejiyay hoyga martida ee dalkaasi Masar oo 2 cisho uu joogo halkaasi uu ku sugnaan doono. sidoo kale wararka aynu ka helayno xafiiska
Rooble ayaa inoo sheegay in Rooble sidoo kale uu la kulmi doono jaaliyadda Soomaaliyeed ku dhaqan dalkaasi Masar oo kala hadli doono xaaladda dalka isla markaana uu ku dhiirigelin doono in dalkooda ay maal gastaan oo ganacsiyada iyo horumarada ka soconaya dalkooda ay qayb ka noqdaan. Rooble ayaa sidoo kale la filayaa in madaxweynaha dalka Masar Cabdifataax al-Siisi uu la soo galo heshiis caalami oo ku aadan xiriirka labada dal isla markaana Rooble iyo sidoo kale Cabdifataax al-Siisi ay arrimo badan oo muhiim ah meel wada dhigaan. waxyaabaha ka soo kordha kulanka Rooble iyo sidoo kale Cabdifataax al-Siisi waxaad ku daawan doontaan wararka iyaga dambe markan haddii aynu eegno ra'iisul wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Rooble ayaa inta uusan ka dhoofin gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka waxa uu shir gudoomiyay kulan ku qabsoomay habka fogaan aragga kaas oo ay ka qayb galeen madaxda dowlad goboleedyada golaha wadatashiga qaran qaybta ka ah oo ka kooban dowladda federaalka Soomaaliya dowlad goboleedyada dalka iyo gobolka Banaadir. golaha wadatashiga qaran ayaa isku raacay in kulan mar kale isugu yimaadaan isla markaana uu ka qabsoomo gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka kaasoo furmi doona maalinta Khamiista ay soo socoto oo ku beegan 19 bisha Agoosto aynu ku guda jirno isla markaana shirkaasi diiradda lagu saari doono diyaar garowga doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya diyaarinta habraaca doorashooyinka raadinta dhaqaalaha ku baxaya doorashooyinka aan wali soo xaroon iyo sidii hore loogu sii socon lahaa. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa ku booriyay xubnaha dowlad goboleedyada inay dardar geliyaan hirgelinta doorashooyinka aqalka sare si looga baaqsado dib u dhac loona gaaro jadwalka doorashooyinka. arrintan ayaa ku soo aadaysa ka gadaal markii xubnaha midowga musharaxiinta ay ka hor yimaadeen nidaamka doorashooyinka u socdaan iyadoo la filayo in dhowaan warmurtiyada ay soo saaraan xubnaha midowga musharaxiinta mucaaradka. daawadayaal waxaad daawanaysaan warka Sirta Media markan haddii aynu eegno shalay waxaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya laga soo dejiyay gawaarida dagaalka oo loogu talagalay ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya kuwaasi oo dowladda Turkiga gaar ahaan safiirka dowladda Turkiga u fadhiya Soomaaliya Mohamed Yilmaz uu ku wareejiyay taliska ciidanka xoogga dalka si gawaaridan ay qayb uga qaataan dagaalka ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ay kula jiraan ururka al-Shabaab isla markaana ciidamada gawaaridan ay ka saacidaan fududeynta dagaalka si ay kula jiraan ururka al-Shabaab balse waxaa soo baxaya warar ka duwan sida dowladda Turkiga ay ugu talagashay gawaaridan isla markaana ay ugu wareejisay taliska ciidanka xoogga dalka xoga xasaasi oo aan ka helnay filla Soomaaliya gaar ahaan xafiiska madaxweynaha mudxileedkiisu dhamaaday ayaa sheegaya in farmaajo gawaaridan uu diiday in ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ay u adeegsadaan dagaalka ay kula jiraan ururka al-Shabaab taasi beddelkeedana farmaajo uu doonayay in gawaaridaasi gabi ahaanba lagu soo xareeyo filla Soomaaliya si madaxweynaha mudxileedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ugu adeegsado doorashooyinka inuu ku carqaladeeyo isla markaana ciidamo farmaajo ka amar qaato ku heeba gawaaridaasi lagu wareejiyo si ay ugu fududeeyaan farmaajo danaha uu ka leeyahay doorashooyinka dalka maadaama farmaajo uu doonayo in mar kale uu ku soo laabto filla Soomaaliya oo dalkan uu maamulo 4 sano ee soo socota. xogtan helna ayaa tilmaamaysa in farmaajo iyo sidoo kale taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliya isku khilaafeen arrintan isla markaana taliye Odawa uu gabi ahaanba ka diiday amarka ka soo baxay farmaajo oo uu sheegay in gawaaridan loogu talagalay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed inay u adeegsadaan howlgallada ay ka wadaan gudaha dalka Soomaaliya ay ku baxsanayaan ururka al-Shabaab balse farmaajo uu doonayo inuu ku carqaladeeyo horumarada ka soconaya dalka iyo sidoo kale doorashooyinka haatan ka bilowday dalka si farmaajo mar kale ugu soo laabto talada dalka oo kursigu haatan uu ku fadhiyo ee uu jeclaysanayo mar kale uu hantiyo. Odawa ayaa gawaaridan u kaxeeyay dhanka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya iyadoo haatan warar aan helnay ay sheegayaan in farmaajo Odawa uu soo dirsaday saraakiil ka socda dhankiisa uu doonayo inay xalliyaan khilaafkaasi iyo Odawa soo kala dhaxgalay gawaaridaasina amarkiisa la fuliyo oo lagu soo xareeyo filla Soomaaliya. markan haddii aynu eegno General Sheekh Yuusuf Maxamed Siyaad Indhacade ayaa si adag uga hadlay hanaanka loo maamulayo doorashooyinka golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ee ka socda xarumaha dowlad goboleedyada dalka isagoona aad u dhaliilay madaxda dowlad goboleedyada fariin culusna u diray. Indhacade ayaa waxa la qaadan karin oo ceeb ku ah qaranimada Soomaaliya ku tilmaamay doorashooyinkii ka dhacay xarumaha dowlad goboleedyada isagoona madaxda Soomaaliyeed u soo jeediyay inay Ilaahay ka cabsadaan oo ay sidan wax ka bedelaan sidaad u dhaqmaysan haddii aad ku sii socotaan kan kale ummadda Soomaaliyeed ku yaala ayaa tihiin war Ilaahay ka baqa sidaad u dhaqanteen qof mas'uul ah oo og in Ilaahay uu la xisaabtamayo uma dhaqma ayuu yiri Indhacade ayaa sidoo kale nasiib darro wuxuu ku tilmaamay in madaxda Soomaaliyeed aysan casharo ka baran dhibaatadii uu dalka soo maray 30 sano aynu soo dhaafnay. gudahan saaxiibadan jecelnahay inta ayaan ku soo afmeeriya warkeed kala socoteen channelka Sirta Media tan inta ku kulmi doona warka iyaga xiga nabadgelyo.
media.